15 Oktoobar sanadkii 1969 markii saacadu ay 11 subaxnimo waxaa lagu dilay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool madaxweynihii waagaasi waxaana dilay askari ka tirsan ciidanka booliiska kaasi oo kadib la toogtay 10 February sanadkii 1970 madaxweynaha waagaasi la khaarijiyay waa Cabdirashiid Cali Sharmaake waxaana uu ku dhashay degmada Xaradheer ee gobolka Mudug sanadkii 1919 markuu madaxweyne ka noqday dalka Soomaaliya ayaa askari ka tirsan ciidamada ilaalada ka hayay ayaa toogasho ku dilay 15 Oktoobar sanadkii 1969 sidaynu horeba u soo sheegnay 6 maalmood kadib markuu dilka dhacay ayay ciidamadii talada xoog kula wareegeen iyagoona weli lagu guda jiray baroordiiqda madaxweynihii waagaasi la dilay waxaana 21 Oktoobar sanadkii 1969 madaxweyne dalka Soomaaliya ka noqday Maxamed Siyaad Barre oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hase yeeshee markii afgambigaasi dhacay waxa xadhig ay u taxaabeen dhammaan xubnihii ka tirsanaa dowladii hore Cabdirashiid Cali Sharmaake ilaa markaa waxayna sameeyeen way mamnuuceen xisbiyo siyaasadeed in laga sameeyo wadanka kuwaas oo la tartami kara xisbiga ay ugu yeedheen kacaanka